بسم الله الرحمن الرحيم waxaan bilaabaynaa insha Allah casharadii taxanaha ahaa oo ku sharaxnay maadada general surgery waxaan ka bilaabaynaa topic aad u muhiim ah oo kamid ah topicada ugu muhiimsan ama casharada ugu muhiimsan maadada general surgery topicaas oo ah hernia okay inta aan ku jirno taxanahan waxaan sameyn doonaa waxaan mar u socon doonaa systemic ah topic walba for example hernia kale waxaan ka qaadan doonaa definition etiology pathology clinical picture investigation and treatment marka waxaan ku bilaabaynaa wax la yiraahdo definition ama topic walba markaan ka hadlayno waxaan ku bilaabaynaa definition oo ah taariifka ama waa maxay waxaan horta kadibna waxaan u gudbaynaa pathology qaabka ay ku dhacaan etiology oo ah waxyaabaha sababa investigation baaritaanada loo baahan yahay in loo diro qofkaas clinical examination or history examination ka iyo treatment qaabka loo daaweeyo marka hernia markaan ka hadlayno hadda waxaan u hadlaynaa in general kadibna waxaan galeynaa insha Allah topicyada ugu muhiimsan oo hernia gudaheeda sida inguinal hernia iyo femoral hernia umbilical hernia paraumbilical epigastric and so on marka si general ahaan hernia macnaheedu waxa waaye protrusion of a viscous through a defect oo ah protrusion of a viscous through a defect waa in qayb ka mid ah haddii ahaato external ama internal herniation labadaba waa qayb ka mid ah contentiska inuu ka sameeyo protrusion oo inuu ka soo baxo qayb ka mid ah viscouska uu ka soo baxo through a defect macnaheedu waxaa waaye duleelkaas ahaado internal sida diaphragmatic hernia ama ahaado external sida inguinal hernia ama femoral hernia marka definition of hernia waxaan leenahay protrusion of a viscous through a defect oo ah waa in la helo defect hernia ma jirto haddii la helin defect ama meel duleel ah wixii ka soo baxaan haddii aysan jirin viscous ha ahaadaan viscous ha ahaadaan wax kasta waxaa lahaa content of the hernia marka definition of the hernia waa protrusion of a viscous through a defect okay waxaan ku xijinaynaa waxa la dhaho pathology of the hernia pathology of the hernia pathology macnaheedu maxaa waaye waxyaabaha ay ka kooban tahay ama waxyaabaha aan rabo markaan hernia u bixinayo ama hernia aan leeyahay waxaa jira waxyaabo aan u baahanahay inay shuruudo aan u baahanahay inay soo wada dhamaystirmaan si aan u dhaho waxaan hernia waaye waxay uga duwanaato another swelling sida lipoma sebaceous cyst dermoid cyst and so on pathology-geeda marka waxa ugu muhiimsan waa inuu jiraan waxa la dhaho content meeshan waxa herniation soo sameeyay waa in wax ku jiraan meeshan marka hadii duleel uu jiro bas defect uu jiro laakiin content ay si jiraan ama meeshii soo buurantay waxba ku jirin ma noqonayso hernia ma noqonayso marka pathology waxa ugu muhiimsan content wuxuu noqon karaa marba meeshii la joogo ku xiranta organs wuxuu noqon karaa liver wuxuu noqon karaa small intestine wuxuu noqon karaa omentum and so on marka contentiska wuxuu noqon karaa omentum wuxuu noqon karaa bowel ama small ama large intestine wuxuu noqon karaa any organ up to liver sida markii waxa la congenital umbilical hernia ama omphalocele waxa ku jira liver waxa noqon karaa fat only marka content in la helo ama wax ku jira defectiga waa in la helo taas ala content wuxuu noqon karaa omentum ama bowel ama liver ama fat ama any organ sida urinary bladder ovary and so on pathology-ga labaad oo la rabo in ama shardiga labaad oo la rabo in laga helo in hernia waa inuu jiro sac oo ah contentiskaas wax ku daboolan ama coverkiisa oo loo sac waxa saddexaad ama shardiga saddexaad oo laga rabo hernia ayadana waa in la helo wax loo defect marka defect haduusan jirin ama meel duleel aysan jirin oo wax ka soo baxaan ayadana ma noqonayso hernia marka si aan hernia u dhaho waxaan u baahanahay content waxaan u baahanahay sac waxaan u baahanahay wax loo defect saddexaas mid kamid ah haduusan jirin lama dhihi karo hernia marka pathology of hernia waxaan kusoo koobaynaa content inuu jiro sac iyo inuu jiro defect defectigaas ha ahaado congenital mid qof dad ku dhasho ama acquired oo ah qofku markuu dhasho kadib waxyaabo kusoo kordha marka halkaasna waxa uu gudbinaa pathology of hernia okay topic saddexaad oo qaadanayna muxuu noqon doonaa asagana
etiology macnaheedu waxa waaye causes ama sababta maxaa sababa hernia ama eernada maxaa sababa waxaa sababa etiology waxaan dhigi karnaa marka waxaan kala qaybinaynaa congenital iyo acquired. Congenital macnaheedu maxaa waaye wax lagu dhasho waaye okay qofku uu ku dhasho. Acquired waxa waaye qof markuu u dhasho kadib wax uu kasbado ama acquired wuxuu noqon karaa post operative or incisional hernia oo imaanayna marka congenital iyo acquired loo kala qaybiyaa. Etiology waxyaabaha sababa congenitalka waxa ugu caansan congenital inguinal hernia. Congenital kasaliftu wuxuu noqon karaa waa inuu jiro congenital sac ama congenital defect. Congenital sac markaan leeyahay waxaa example ah unobliterated processus vaginalis oo nasiib waxa la congenital inguinal hernia ama eernada ilmaha yarka anug yarka soo jira sanad ama ka yar waxa lagu arki lahaa hernia. Hernias waxay ka imaatay يعني عنو جريسكا wax culeysna muusa qaadin mana uusan arkin waxyaabihi sababi kara acquired hernia laakiin waxa ku jira waxa la dhaho unobliterated processus vaginalis oo ah pathway testiska inuusan xirmin taas waxay keeni kartaa waxa la congenital inguinal hernia. Congenital defect waxa example ah congenital umbilical hernia ilmaha ay ku dhashaan defect around the umbilicus. Waxa kaloo kamid ah congenital diaphragmatic hernia oo ayagana ilmaha ay ku dhashaan congenital diaphragmatic hernia inuu jiro oo anugu oo lagu arko isbuuca koobaad ama bisha koobaad ama maalmaha koobaad ku dhasho marka waa inuu jiro karo congenital sac ama congenital defect. Acquired waxa kamid ah waxyaabaha keena waxaa kamid ah continuous straining macnaha qofka qabada for example dadka qaba benign prostatic hypertrophy badana marka ay kaadinayaan oo kale ama waxay leeyihiin waxa loo strain ama kaayada xoog ama urination uu jiro badana waxa ku soo baxa hernia. Waxa kale oo kamid ah dadka qaba chronic constipation oo asagana maxaa mar la markuu musqusha gal waxa waaye majiirasho badan iyo constipation badan jira marka sidaa darteed waxa ku imaada ayagana hernia ama for example inguinal hernia ama epigastric and so on. Waxa kale oo kamid ah acquired waxa kamid ah incisional hernia oo ah herniada imaata post operative yani meel oo incision ama la dilaacay ama la jeexay waxa kamid ah incisional hernia post cholecystectomy post appendectomy iyo post cesarean section so on. Marka kuwaasna waxa la incisional hernia waxa la qofka meesha laga qalo markii laga qalo kadib waxa ka soo baxaya acquired hernia ama incisional hernia ayagana waxa waaye qayb kamid ah acquired hernia. Marka etiology waxaan kala qaadnay congenital acquired na ayadana waxaan sheegay sababaheeda. Topic saddexaad aan galayna muxuu yahay marka types of hernia. Types waxaan kala qaadnay external hernia. External macnaheedu waxa waa example waxa kamid ah inguinal hernia waxa kaloo kamid ah epigastric hernia waxa kaloo kamid ah umbilical hernia paraumbilical yani wax banaanka yaalo waay. Waxa kaloo cagsigeeda ah internal hernia oo ah ayadana internal hernia waxa example ayadana marka congenital diaphragmatic hernia ama hiatus hernia. Okay, external hernia iyo internal hernia. External hernia waa common ka ah waa si aan sheegnay inguinal, femoral, epigastric, umbilical, paraumbilical and so on. Types of hernia hadda intaas ugu gudubno waxaan gudbinaa hadda clinical picture. Clinical picture of hernia yani waxa aan ku arkayo qofka marka inta aan dhigin ka hor qofka hernia qaba ama erno qaba waxyaabaha aan ku arkayo maxaa kamid ah marka waxa la rabaa ayagana inaan haysto 4 shardi ama 4 shay. Waxa ugu muhiimsan inay ku taal anatomical site of hernia
marka anatomical side of hernia maxaa ula jeedaa marka waa meel lagu yaqaano in hernia ka imaato yani qof dhabarka uga taalo swelling hernia ma dhahayo laakiin had markay uga taalo inguinal area waxaa kamid ah anatomical side of hernia waxaa kamid ah inguinal area okay waxaa kamid ah femoral triangle ama femoral canal waxaa kamid ah epigastric waxaa kamid ah umbilical and paraumbilical okay waxyaabahaas dhan waxaa la dhahaa anatomical side of hernia waxaa kaloo kamid ah site of previous operation meel walba oo qofka laga qalo waxaa ku imaan kara herniation taasna waxaa la dhahaa incision of hernia marka koo waxaa shardiga koobaad ah ama clinical picture kamid ah waxaa la dhahaa anatomical site of hernia okay waa inay jiraan meesha ay ku yaalaan anatomical site of hernia labo waa reducible waa inay laabanayso markii aan riixo waa inay gudaha ku laabanayso maxaa yeelay contentiska markaan celiyo waa inay ku laabanayso gudaha reducible ama reducibility alla waxaa kaloo jira waxa la dhahaa expansile impulse on cuff waa celiyey reducibilitygeeda waa ogaaday kadibna waxaa qofku markuu qufaco inay soo baxayso waxaa la expansile impulse on cuff yani herniadu haddii aysan laabanin ama reducible ahayn hernia ma aha markay complicated noqoto badanaa waxaan irreducible noqon karaan laakiin calaamadaha muhiimka ama uncomplicated hernia waxaa kamid ah reducibility markaan gudaha ku celiyo waa inay soo baxayso iskaaf qofku markuu qufaco inay banaanka imaanayso haddii marka aan celiyo haddana markii qofku qufaco ay soo bixin ayadana waxaa la weynaa shuruudii mid kamid ah expansile impulse on cuff yani waa in markii qofku qufaco ay banaanka soo baxayso saddex defect waa inuu jiro defect waa inuu jiro markay celisid kadib inaad defectiga palpation ku sameyn karto oo gacantaada aad ku dareemi karto marka ani waa inaan haysto anatomical site of hernia waxaan inay ku yaalaan ama swellingkan uu ku yaalo meel dhow anatomical site of hernia inguinal femoral canal and femoral triangle umbilical paraumbilical waxaa loo yaqaano epigastric and so on waa inuu reducible ay tahay ee laabanayso shardigaas wuxuu leeyahay wuxuu noqon karaa qaar kamid ah herniyada waxay noqon kartaa irreducible ayadana waa uncomplicated oo imaanayna complication expansile impulse on cuff waa inay ku soo baxayso ay banaanka ku imaanayso qofku qufaco ay banaanka ku soo baxayso defect markay celisid kadib waa inaad defectiga taabi karto oo aad palpation ku sameyn karto afartaas shardi ah waxay tahay clinical picture of hernia clinical picture of hernia halkaas aan ugu gudubnay waxaan fiirinaynaa ayagana waxa la dhahaa complication of hernia أنا هذا وحنا كهذا لأنه وا in general يعني وا inguinal جوني وماهن femoral جوني وماهن كل جودة القصيصة complication كده حقوق مهمسن ما هذا هنا وا reducible hernia كستو uncomplicated هذه مركة irreducible نقطة وحنا قلنا complication متكمل irreducibility complication حقوق مهمسن وحاول إرنا ويسوي بحسي ولا بنيس هذه بالله إنه صاب بحضي لكن إسلابن وحال الله irreducibility وهي كمية هاي complication of the hernia هذه أهاتو inguinal هذه أهاتو anytime waxaa kaloo kamid obstruction herniadu way soo baxday waxay noqotay irreducible ma laaban karto waxay sababtay obstruction ama intestinal obstruction haddii samaysto qofkii abdominal pain vomiting constipation iyo waxa loo yaqaano absolute constipation ay keento waa obstructed hernia lahaa marka irreducibility waxaa ku xiga obstruction complication saddexaad ugu muhiimsan asagana waxaa strangulation macnaheedu maxaa waaye waa in intestinka ama oo soo galaya hernia defect uu ka jarmo dhiigga waxaa waaye loss of blood supply uu ka xirmo dhiigga the part of the intestine oo soo gala inside the hernia defect maxaa la strangulation hadduu ku dhaco blood supply ka jarmo kabacdina waxaa ku dhacaya gangrene and then waxaa waaye sepsis iyo peritonitis and so on marka irreducibility obstruction strangulation iyo midda afraad ah inflammation inta waxay kamid yihiin calaamadaha ama complication ugu muhiimsan hernia irreducibility obstruction strangulation and inflammation inta waa lagu arki karaa femoral hernia waa lagu arki karaa congenital diaphragmatic hernia waxaa lagu arki karaa femoral hernia waxaa lagu arki karaa umbilical hernia haba u kala badnaadaan marka ayagana waxay kamid yihiin complication of hernia topiga afraad aan ka qaadanayno oo hadda waxaan soo sheegnay definition pathology clinical picture waxaan sheegnay iyo complication investigation okay
investigation hernia uma baahna investigation gooni ah waa diagnosis-keedu waa clinical examination waa ina helaa afartii shay oo soo sheegnay inay kulligood helnaa waa in anatomical site of hernia waa inuu defect jiro waa inuu jiro expansile impulse on cuff waa inuu jiro reducibility intaas marka helo waxaan diagnose garay karaan waxa loo yaqaan hernia marka investigation ugu badan u baahan tahay waxa la dhihi karaa bas ultrasound si aan hubiyo meesha inuu bowel ku jiro inuu ku jiro momentum inuu yahay so marka asagana waa supportive ma aha for diagnosis only marka clinical examination waxay tahay how to diagnose any hernia hadii ato inguinal hadii ato femoral iyo hadii ato epigastric treatment of hernia waa surgical ma jirto hernia oo lagu daaweeyo daaweyn ama kaniiniyo lagu daaweeyo ma jirto kulligood waa qaliin ha ahaato umbilical ha ahaato congenital diaphragmatic ha ahaato hiatus hernia ha ahaato femoral kulligood waa for surgical operation haba kala duwanaadaan marka mid walba wuxuu leeyahay operation u gooni ah iyo approach gooni ah waa qaadan doona midna ku istaagi doona insha Allah hadda intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa hernia dhammaanteed in general uga hadlay hadda waxaan gelinaynaa marka aan si gooni u bilaabeynaa topic ugu muhiimsan hernia oo ah inguinal hernia ajojo bismillahir rahmanir rahim waa katib bilaa waxaan qaadanaynaa marka hernia in general u dhameynay waxaan hoos u gelaynaa marka mid hadda waxaan ka bilaabanaa inguinal hernia oo most common type of hernia herniaska dhan nooca ugu commonsan ama ugu badan waa inguinal hernia marka inguinal hernia intaan ayada aan surgical ahaan u sharxin waxaan rabnaa inaan horta dib ugu laabano halo surgical anatomy of inguinal canal surgical anatomy of inguinal canal okay inguinal canal marka horta waxaan rabnaa inaan ogaano waxa la dhaho for example okay halkan waxaan ka soo qaadanaa for example ay tahay anterior abdominal wall inta waa umbilicus anterior abdominal wuxuu leeyahay markaa saddex muscle oo caan ah oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah marka mid la dhaho external oblique aponeurosis okay external oblique wuxuu ku dhamaadaa marka wuxuu sameeyaa marka uu dhamaanayo wuxuu leeyahay waxa la dhaho external oblique muscle iyo external oblique aponeurosis marka aponeurosis kaas waxa waa membrane oo ku jira external oblique dhamaadkiisa ah wuxuu ku xirmaa marka wuxuu ku egyahay meeshan oo loo yaqaano ama folding of the external oblique wuxuuna siinaa waxa la dhaho inguinal ligament marka inguinal ligament wuxuu ka imaaday folding of the external oblique aponeurosis okay marka waxa ka hooseeya muscle kale oo dhaho internal oblique asaga ma soo gaaro dhamaadka ama iliac crest ma gaaro ama inguinal ligament wuxuu ku egyahay halkan waxa ka sii hooseeya muscle kale oo dhaho transverse abdominis wuxuu ku egyahay this area marka labada muscle oo u hooseysa si internal oblique iyo transverse abdominis waxay sameeyaan lower argin fibers of transverse abdominis iyo internal oblique waxayna siinayaan waxa la dhaho conjoint tendon macnaheedu waxa waa lower argin fibers of internal oblique iyo transverse abdominis muscle waxayna ku egyihiin above the inguinal ligament wuxuu ka imaaday from the external oblique aponeurosis marka aniga waxay tahay saddex muscle internal oblique external oblique iyo transverse abdominis okay laba muruq oo kamid waxay ku egyihiin halkan oo loo conjoint tendon muruqa saddexaadna wuxuu ku egyahay wuxuu sameeyaa waxa loo inguinal ligament space-ka u dhaxeeya between the lower argin two fibers of internal oblique iyo transverse abdominis muscle iyo inguinal ligament waxa la dhahaa inguinal canal okay inguinal canal marka wuxuu ka bilowdaa areadan la dhaho superficial
ama sorry deep inguinal ring, deep inguinal ring, deep inguinal ring. magaciisa kale waxaa la internal ring, internal ring. halkan waxaa la lahaa superficial inguinal ring oo magaciisa kale dhaho external ring. marka aniga waxaan haystaa two opening, deep inguinal ring iyo superficial inguinal ring. space kan u dhaxeeya between two ring ama two opening oo ah deep inguinal ring iyo superficial inguinal ring waxaa la lahaa inguinal canal, inguinal canal. inguinal canal waa meesha uu ka imaado marka ama uu ka jiro herniyada oo la dhaho inguinal hernia. marka aniga waxaan haystaa deep inguinal ring, superficial inguinal ring. inta u dhaxaysan waxaa waaye inguinal canal. marka waxaan rabaa inaan xadido oo marka hore aan qeexo waxa la yiraahdo relations ama anatomy of the inguinal canal. anatomy of the inguinal canal marka inaan qeexo rabo waxaan rabaa inaan relation ka sheego. anterior maxaa ka xiga horta? anterior maxaa ka xiga? skin superficial fascia iyo external oblique aponeurosis ama external oblique muscle. posterior maxaa ka xiga? posterior maxaa yeelay external internal oblique transverse abdominis waxay ku dhamaadaan above the inguinal canal. marka waxaa ka xiga posterior ka waxa loo fascia transversalis, fascia transversalis. okay. roof oo ah halkan maxaa ka xiga? saan usoo sheegnay meesha ay ku dhamaadaan two muscles oo ah internal oblique transverse abdominis. maxaa la lahaa marka wax loo yaqaano conjoint tendon oo ah conjoint tendon oo ah lower arch fibers of the transverse abdominis iyo internal oblique. floorka maxaa ka xiga marka? kan oo ah inguinal ligament, inguinal ligament. marka aniga waxaan haystaa boundaries of the inguinal canal. above ama anterior waxaa ka xiga external oblique aponeurosis, posterior maxaa ka xiga fascia transversalis, roof maxaa ka xiga conjoint tendon, floorna maxaa ka xiga inguinal ligament. marka intaas markaan fahansanahay hadhow waxaa ii sahlanaanaya inaan fahmo operationkii, waxaan fahmay inaan fahmo anatomy ama qaabka ay ku imataan pathology of the inguinal hernia. marka inguinal hernia waa herniada kasoo baxda at this area, ka imaata from the deep inguinal ring to the superficial inguinal ring. taas marka waxaa la lahaa indirect ama oblique inguinal hernia. oblique inguinal hernia halka midda kale ay ka imaato marka areadan u dhaxaysa between the rectus sheath iyo inferior epigastric ayaa waxaa la asagana Hasselbalch triangle. waxaa la Hasselbalch triangle. Hasselbalch triangle asagana maxaa ka imaada? waxaa ka imaada wax loo yaqaano direct hernia. marka direct hernia iyo indirect hernia labada waxay ka imaadaan at this area oo Hasselbalch triangle iyo inguinal canal. marka waxaan ka fahansanahay anatomy ama boundaries of the inguinal canal. deep inguinal ring meesha uu ku yaalo, superficial inguinal ring meesha uu ku yaalo waxay noqonaysaa waxay sahlanaanaa inaan fahmo anatomy of ama pathology of the direct indirect hernia. waxay ku kala duwan yihiin how to examine iyo treatment iyadoo ah operation marka la sameynayo. okay. halkaas marka uu gudubno anatomy ama surgical anatomy of the inguinal canal. inguinal hernia inguinal hernia waxaan dhahnay definition case waxaa waaye herniation of the abdominal content through the deep inguinal ring. يعني through a defect meesha uu ka ahaa definitionka waxay noqonaysaa herniation ama protrusion of the abdominal interabdominal contents through the deep inguinal ring ama inguinal area. pathology-geeda waxaan dhahnay pathology kulligood kala mid waaye waa inuu jiro defect uu jira waa deep inguinal ring ama posterior wall of the inguinal canal inuu yahay loose ama uu yahay uusan adkeyn. waa inuu jiro kale sac maxaa contentska ku jira inguinal hernia waxay leeyihiin sac waxaana ku jira soo kale content. marka aniga waxaan haystaa pathology waxaan haystaa sac, waxaan haystaa contents iyo waxaan haystaa defect. marka pathology of the hernia way soo buuxisay ama shuruudihii laga rabay. clinical picture waa reducible, waa expansile impulse on cuff, waa anatomical side of hernia waxaana jira defect oo markaa celisid herniadii waxaad samayn kartaa palpation of the defect.
clinical picture wuxuu kala mid yahay herniadii aan soo sharaxnay. Investigation waxaan dhahnay diagnosis of the inguinal hernia waa by clinical examination ama waxyaaba aan u imaan doono how to examine the inguinal swelling. waxaa kaliya marka muhiim oo rabno inaan kor istaagno waa examination of the inguinal hernia. yani qofka qaba inguinal swelling ama for example waxaa la dhaho groin swelling. يعني marka hore ma dhihi kartid inguinal mana dhihi kartid femoral waxa la isku dhahaa groin swelling. marka groin swelling markuu qofku la imaado qof oo ka baran qaska waxa uu sameynaysaa examination of hernia si uu kala saarto waxa ma femoral hernia soo inguinal hernia kadibna waxa sameynaysaa another examination si uu ogaatid waxaan waxa way direct inguinal hernia mise waa indirect inguinal hernia. marka examination koobaad oo qofku uu sameynaysaa groin swelling waa waxaa sameynaysaa waxaa la palpation of the pubic tubercle. okay pubic tubercle oo ah labada meesha iska galaan two pubic crest waxa ku farta saaraysaa qofka markuu xalada qufac si markuu qufacana hadii ay hernia ku yahay above and medial waa inguinal hernia. يعني qofku waxa sameeyay palpation to the pubic tubercle. pubic tubercle farta saartay qofku uu qufacay herniadu waxay ka soo baxday above and medial to the pubic tubercle waxay noqonaysaa inguinal. hadii ay ka soo baxdo below and lateral to pubic tubercle waxay noqonaysaa waxa loo yaqaan femoral hernia. okay أنا ممكن أوجادي وحني femoral أما إيه inguinal. femoral أيضا part أما classification مالهم وحلا كل قريبا only femoral hernia لكن مركي النقطة inguinal hernia وحلا اللي جربا أنا نقيح إني وحنا تهاي direct أما إيه تهاي indirect. okay هدي أي نقطة inguinal hernia وأنا كلا قاعدة أيضا إني تهاي direct أما indirect inguinal hernia. نحن كل أوجانا مركا test وحلا أجرا سجنا internal ring test. marka internal ring intee lahaa internal ring waxaa lahaa meeshaan waa deep inguinal ring kan waxaa waaye ilia crest kan waxaa waaye pubic tubercle. marka pubic tubercle iyo ilia crest waxa u dhaxeeya waxa la inguinal ligament. marka inguinal ligament waxa jiraan dhahno waxa la deep inguinal ring ama internal ring iyo superficial inguinal ring oo la dhaho external ring. okay marka internal ring test macnaheedu waxa waaye meesha ay wax ka soo baxaan oo defect ku yaala waa deep inguinal ring. aniga waxaan sameeynaa hernia qofku waa jiifina hernia celina kadib markaan gudaha ku celiyo waxaan farta saaraa 1 inch above من هل 1 inch above كسرسة at the mid inguinal point ماشان أحولها mid inguinal point. يعني فرت وحن صار وحن عب فينا إليا كريست البيبك tubercle ماشي أقول لحسن أنا فرت صار مكقفك مركي أنا عليه وهيرني أنا reduction أنا كسمعين مركي مكقف حدي إصابة حدا أنا deep inguinal ring هاي حنا قناه direct hernia أو كصاب حدا from the Hasselbalch angle. هدي أسوبي ويسنا و oblique inguinal hernia. مرك oblique inguinal hernia وحكي بحدا from the deep inguinal ring to superficial inguinal ring. أوكي مرك deep inguinal ring هدي عن فرت صاره معناه أنا وها حري defective أماشي وحكي بحلاين. مرك حري ماشي وحكي بحلاين هدي صوب بحن وحين قلنا oblique أما indirect inguinal hernia. هدي إصابة بحضن وحين نقولنا direct inguinal hernia وحين كسب بحضن from the Hasselbalch triangle. مركا وحنقول أنا two examination سي أنا أوجده إن وحين هي direct أم indirect hernia أم إن هي femoral يو inguinal hernia. كوذا روح عن كبل لابيا the pubic tubercle فرتان صار قف عنها هدي كسب بحضن above and medial أو مالك كرسة وinguinal hernia. هدي كوز سنة وحين نقولنا femoral hernia. marka hadii ay ka soo baxdo above and medial macnaheedu inguinal marka diagnosis inguinal hernia bas ma noqon karo waa inuu noqdo direct ama indirect inaan kala saaraan rabaa waxaan sameeynaa waxa la dhaho internal ring test waxaan xirayaa
deep inguinal ring qofkan waxa la qufac hadii ay soo baxdo macnaheedu waa direct inguinal hernia hadii ay soo bixi weysana waxa xiran defective oo waa indirect ama oblique inguinal hernia. That's what examination of the groin swelling ama how to examine the inguinal swelling. Okay, treatment. treatment ugu investigation kaliya oo u baahnaa karo waxa kamid ah waa abdominal ultrasound ama inguinal scrotal abdominal ultrasound ama inguinal abdominal pelvic sorry iyo inguinal scrotal ultrasound si uu ogaado wax meesha ku jira bowel miya small intestine miya omentum miya fat miya and so treatment of hernia waxa dhahnay in hernia waa for surgical operation in hernia waxa dhahnay waa for surgical operation waa in oo la qalo qofka marka qalinkiisana maxaa la qalimadan waxa loo kala qaadaa saddex ko waxa loo herniatomy macnaheedu waxa waaye waa in la jiro excision of sac and a reduction of contents يعني excision of sac and reduction of contents ayaa waxa lahaa herniatomy marka herniatomy loo sameeyaa only waxa loo sameeyaa congenital inguinal hernia ama pediatric inguinal hernia markii canug yar uu yahay only waxa la sameeyaa herniatomy macnaheedu waxa waaye waa in reduction lagu sameeyo the contents and excision of sac waa in sac ama xuubka ku wareegsanaa la xiro la jaro ayagana gudaha lagu celiyo wax dambe la sameeyaa mal taas waxa la herniatomy only waxa loo sameeyaa pediatric ama waxa la congenital inguinal hernia waxa kale jira marka waxa la herniorrhaphy macnaheedu waxa waaye waa intii oo kale oo lagu daray waxa lagu daray only narrowing of the deep inguinal ring plus plication of the posterior wall of inguinal canal. Posterior wall of the inguinal canal muxuu ahaa waa fascia transversalis marka herniatomy waxa sameeyaa herniorrhaphy waxa sameynaysa excision of sac reduction of contents plus waxa ku diray marka narrowing of the deep inguinal ring maxaa yeelay meeshii wax ka soo baxayeen oo ah deep inguinal ring ina xirtid oo yareysid only kadibna waxa sameynaysa plication ama reinforcement of the fascia transversalis oo posterior wall reinforcement by suture. Okay, marka reinforcement of the posterior wall ama waxa loo yaqaano reinforcement ama plication of the posterior wall ayaa waxa ku kala duwan operations ka qaar ko maxaa lahaa herniorrhaphy ugu caansan waa Bazzini repair muxuu sameeyaa herniorrhaphy macnaheedu maxaa waaye waa inaan sameeyo herniatomy oo excision of sac iyo reduction of the contents maxaa raacaya marka waa inaan sameeyo narrowing of the deep inguinal ring waa sameey Bazzini muxuu ugu duwan marka kale Bazzini muxuu sameeynaa meeshan waa inguinal canal halkan waa deep inguinal ring kana waa superficial inguinal ring deep inguinal ring superficial inguinal ring halkan waxa la fascia transversalis oo ah posterior wall of the inguinal canal. Bazzini wuxuu sameeyaa marka reduction of the narrowing of wuxuu sameeyaa excision of the sac reduction of the contents iyo narrowing of wuxuu soo xiray narrowing of the deep inguinal ring by non absorbable suture. Okay, waxaan soo harmarka wuxuu sameeyaa meesha maxaa la dhahaa roof internal floor roofka muxuu ahaa conjoint tendon oo ah lower argent fibers of internal oblique iyo transverse abdominis la isku daray waxayna siiyaan wax sameeyaan loo conjoint tendon hoostaana maxaa ku yaala hoostaana waa inguinal ligament qofka marka aragtay inuu fahmo aad u muhiimta marka conjoint tendon inguinal ligament fascia transversalis deep inguinal ring iyo superficial inguinal ring. Okay, marka conjoint tendon marka Bazzini muxuu sameeyay marka narrowing of the deep inguinal ring wuxuu ku daray marka waxa loo plication ama reinforcement of the deep of the posterior wall. Plication uu sameeyo wuxuu isku xiray marka wuxuu isku talayaa the conjoint tendon iyo inguinal ligament
okay suture عادي oo non absorbable suture prolene between udhaxaysa conjoint tendon wuxuu ku qabanaya meesha la dhaho inguinal ligament conjoint tendon inguinal ligament iyo conjoint tendon inguinal kaasna repair kaas maxaa la dhahaa Bassini repair Bassini repair waxaa kaloo soo kordha marka mid kaloo loo shoulder repair shoulder repair shoulder repair asagana maxaa waaye sidoo kale waxa kala duwan yihiin only reinforcement of the fascia transversalis macnaheedu wuxuu sameeyay excision of the sac reduction of the contents narrowing of the inguinal ligament laakiin wuxuu uga duwan yahay Bassini halkan wuxuu sameeyay conjoint tendon inguinal ligament isku xiray halkan wuxuu sameeyay waxa la dhaho wuxuu sameeyay asagana another procedure oo ah double pressing of the fascia transversalis macnaha double pressing macnaheedu maxaa waaye waa inuu isaaray yani marka hore wuxuu dilaacinaya fascia transversalis markuu kala furiyo haddana hadda iskor saar isku tolaa marka yani sida warqadan for example inta waa fascia transversalis waana weak waana meel oo jilicsan aad u jilicsan tahay marka wuxuu sameeynaya marka waa inuu kala bixiyo oo ay iskor tala marka xoogaa way ka adkaanaysaa soo hor weakness ka uu ka yaraana marka area maxaa waa fascia transversalis waxa sameeynaa incision kadibna ayaga la iskor tala macnaha waa double pressing macnaheedu waxa la double pressing of fascia transversalis marka Bassini repair macnaheedu waa in la isku talo labadan conjoint tendon inguinal ligament shoulders na maxaa waaye double pressing of the fascia transversalis okay maxaa kaloo jira McVeigh repair iyo Halsted repair ayagana muhiim ma ahan marka waxaan kasoo qaadanaynaa herniorrhaphy labaas oo ah Bassini iyo shoulders repair labaduna waxay kala duwan only the reinforcement ama si loo xoojin lahaa posterior wall oo ah fascia transversalis stage saddexaad ama waxaan soo qaadan herniorrhaphy waxaa jira waxa la dhaho hadda hernioplasty macnaheedu maxaa waaye waa hadda operation hadda la sameeyo oo ah meeshii waxba ma la tolay yani intii hore la sameeyay oo hadda la sheegay ayadoo la adeegsanayo waxa la mesh repair ama polypropylene mesh oo ah waxa sameeyay steps ka hore dhan sameynaysa oo ah excision of the sac reduction of the contents iyo narrowing of the deep inguinal ring laakiin waxa farqiga waa intaan bas oo ah reinforcement of the fascia transversalis oo aydan waxa sameynaysa waxa la saaray waxa la mesh oo shabaq lagu tolaa marka polypropylene mesh afarta dhinac lagu tolaa iyo pubic tubercle marka waxa la polypropylene mesh ama hadda waxa loo yaqaan hernioplasty ama mesh repair marka inguinal hernia waa herniorrhaphy oo ilmaha yarka ah pediatric herniorrhaphy ama hernioplasty herniorrhaphy macnaheedu maxaa waaye reinforcement of the posterior wall by suture wall halka hernioplasty uu yahay shabaq la saarayo haddii marka more infection uu jiro ama aad ka cabsanayso inuu meshkan uu infection qaado waxaa sameyn kartaa ordinary herniorrhaphy Bassini ama shoulders repair okay inguinal hernia marka intaas aan ugu gudubnay waxaan u gudbaynaa topic ayada lamid ah oo aad u sahlan oo femoral hernia femoral hernia marka femoral hernia waxaan dhahnaa markii examination loo sameynayo the groin swelling inuu noqdo femoral hernia ama inuu noqdo inguinal hernia marka femoral inguinal hernia soo qaadanay treatmentigiisa iyo operation loo sameeyo noocyadooda waxaan ka baahan qaadanayna marka femoral hernia intuu ka imaadaa marka femoral hernia wuxuu ka imaadaa meel femoral canal marka femoral canal intuu ku yaala hadda sawirka inta waa pubic tubercle inta waa deep inguinal ring inta waa superficial inguinal ring halkan waa pubic tubercle ligamentigan maxaa la lahaa waa inguinal ligament areadan maxaa la lahaa oo ka hooseysa femoral triangle femoral triangle boundaries kiisa madaan oo hor anatomy aan ku hormarno ko femoral triangle boundaries kiisa ko lateral maxaa ka xiga waxa la dhaho sartorius muscle medial maxaa ka xiga muscle kale ama muruq kale la dhaho adductor longus
okay corna maxaa ka xiga inguinal ligament marka sartorius muscle adductor longus iyo inguinal ligament kuwaas waxaa la isku dhahaa 3 boundaries of the femoral triangle. Femoral triangle asaga dhan herniation kuma dhaco wuxuu ku dhacaa marka femoral triangle ka waxaa loo kala qaybiyaa saddex qaybood oo femoral canal, most medial part, interfemoral vein, femoral artery and so on. marka meeshan femoral artery, meeshan femoral vein, intana waxaa la dhahaa femoral canal. marka femoral canal ay waxay tahay meesha uu ka soo baxo herniation ama waxa la dhaho femoral hernia. okay femoral hernia marka erida ay ka imaato waxaa la dhahaa femoral canal oo ah 4 cm ugu sareysa waxa la dhaho femoral sheath. femoral sheath marka anatomy haddaan la aqoon ama inta dib loogu laaban waxa ma la fahmayo meesha. marka femoral canal ay waxay tahay meesha uu ka baxo the site of herniation of the femoral hernia. femoral canal boundarieskisa maxaa waaye marka okay haddii aan u sawirno hadda gacantaan camal si hadda ay tahay ko halkan waa inguinal ligament. inguinal ligament magaciisa kale waxaa la dhahaa Poupart ligament. Poupart ligament. marka kan waa inguinal ligament. halkan waxaan ka soo qaadanaa for example pubic tubercle inay tahay. marka inguinal ligament marka pubic tubercle soo aadayo wuxuu noqonayaa ligament kale oo la dhaho lacunar ligament. lacunar ligament. okay lacunar ligament markuu gadaal u laabto oo la socdo oo la siman yahay inguinal ligament wuxuu noqonayaa another ligament oo la dhaho pectineal ligament. okay marka femoral canal waa kana halkan waxaa waaye inguinal ligament inta waa pubic tubercle. inguinal ligament markuu ku dhamaanayo pubic tubercle wuxuu siinaa another ligament oo la dhaho lacunar ligament. lacunar ligament markuu gadaal u laabtana waxaa la dhahaa pectineal ligament. intana waxaa ku yaala femoral canal waxaa medial lateral waxaa ka xiga femoral vein. marka aniga boundaries of the femoral canal maxay noqonaysaa anterior maxaa ka xiga inguinal ligament, medial maxaa ka xiga lacunar ligament, posterior maxaa ka xiga pectineal ligament, lateral maxaa ka xiga femoral vein. marka halkan waxaa waaye femoral canal, anterior maxaa ka xiga inguinal ligament, medial maxaa ka xiga lacunar ligament, posterior maxaa ka xiga pectineal ligament, lateral maxaa ka xiga femoral vein. marka kuwan waxaa la dhahaa boundaries of femoral canal. halka hernia ka imaatana waa halkan waay. okay marka femoral hernia waxaan dhahnaa waxay more prone u tahay strangulation, more common to female, yani female ka u badan tahay waan hernia ugu badan oo sameeysa strangulation oo ah inuu ka xirmo blood supply inuu ka xirmo. maxaa yeelay waxay leedahay narrow neck, waxay leedahay sidoo kale defectiga waa narrow, kulligiisna waa sharp. maxaa yeelay inta waxaa ka xiga inguinal ligament, lacunar ligament iyo pectineal ligament. saddex ligament ama saddex seed oo adiga u dhaxaysa waana more sharp. marka waxay u baahan tahay inuu ku xirmo blood supply oo strangulation obstruction way uga baahan tahay inguinal hernia. marka markii aan fahmo anatomy of the surgical anatomy of the femoral hernia waxay fududaanaya in hadhowda aan fahmo meesha hernia ka samayso iyo qaabka iyo operationka. femoral hernia clinical picture-ka waa isla sidoo kale waa sida aan sheegnay oo ah waa inay leedahay reducible ay tahay, waa inay tahay expansile inverse on curve, waa inay ku taalo side of anatomical side of hernia oo ah femoral canal, iyo inay leedahay defect. marka content iska celisid inaad defectiga gacanta ku dareemi kartid. clinical picture pathology-geeda waxaa waaye waa inay sac uu jiro ama cover ku daboolan contentiski, waa inay leedahay contents wax ka soo baxa meeshan omentum ha ahaato, fata ha ahaato small intestine and so on. sidoo kale waa inay leedahay defect. intaasna waa pathology. investigationka waxaan dhahnay waa clinical. waxa ugu muhiimsan oo diagnosis of the femoral hernia waa clinical examination. examinationka aan dhahnay waxaa sameyn pubic tubercle fartasart haddii uu below and lateral noqdo waa femoral hernia, above and medialna waa inguinal hernia. waxa kaliya u baahnaan karaa oo investigation waa abdominal pelvic ama inguinal scrotal ultrasound oo ku ogaanayo haddii ay jiraan omentum uu yahay, haddii uu yahay small intestine, haddii uu ku jiraan meeshaan fat and so on. treatment of femoral hernia. treatment of the femoral hernia ayadana waa operation.
marka asagana waxaan haddii aad anatomiga la fahmana waxay noqonaysaa ayadana very easy. Inguinal ligament, pubic tubercle, lacunar ligament iyo pectineal ligament. Okay, marka waxaan sameynaa marka waxay noqon kartaa marka waxa loo kala qaadaa treatment of ama surgical treatment of femoral hernia 2 oo ah inguinal approach ama high inguinal approach iyo low approach. Maana inaan furo ama incision aan ku sameeyo above the inguinal iyo inaan ku sameeyo below the inguinal. Haddii aan inguinal above aan ku sameeyo waxaa la high inguinal approach. Haddii aan incision aan ku sameeyo hoosna waxay noqonaysaa low inguinal approach. Marka low inguinal approach maxay ku fiican tahay? Low inguinal approach maxay tahay? Waa toosa wax u tagaysaa the neck ama fundus of the hernia. Waxaa ku sameynaysaa reduction of the contents and then suture. Waxa isku xiraysa maxay noqonayaan marka? Waxay noqonayaan inguinal ligament iyo pectineal ligament. Macnaha saas waa waxa isku xiraysaa waxa reduction of the contents gadaal u celisay kadibna waxa isku xiraysaa ama suture ama repair ku sameynaysaa two ligament oo ah inguinal ligament iyo pectineal ligament. Marka waxaa la repairkaas P to P repair oo ah inguinal ligament oo loo poor part ligament iyo pectineal ligament. Marka P to P repair macnaheedu waa inguinal ligament poor part ligament waxa lagu xiraa ama lagu tolaya the pectineal ligament waxa lahaa P to P repair. Okay, halkan okay marka waxyaaba ay ku xun tahay low inguinal approach waxay ku xun tahay waxyaaba kamid ah markii strangulate ay tahay resection anastomosis kama sameyn kartid at this area. waxaa kale oo ay ku xun tahay haddii ay reduction irreducible ay tahana xoog kuma celin kartid the contents. Inguinal approach ama high inguinal approach waxaa furaysaa incision halkan kabacdi contentska waxaa ka bixinaysaa kor and then ayadan waxaa sameynaysaa sidoo kale P to P repair oo ah inaad isku xirtid poor part ligament iyo pectineal ligament. marka halkaas aan ku gabagabeynayna insha Allah qaybtii koobaad ee hernia oo aan ku qaadanay hernia in general, femoral hernia iyo inguinal hernia.